السلام عليكم أصحابي soo dhawaada dhammaantiin casharkan waa casharkeenii afka carabiga aynu ku baraneynay min ayna anti gabadhii markaad leedahay xaggee ka timi min ayna anti haddaad wiil la hadlaysana maxaad leedahay min ayna anta min ayna anta waynu aragnaa gabadhii ta'da way hoos dhigan tahay wiilkana ta'da way kor dhigan tahay min ayna anti gabadhii ayay ahayd min ayna anta waa wiilkii oo micnaheedu tahay xaggee ka timi jawaabtii markaa waa isku mid jawaabtii ay bixiyeen wiilkii iyo gabadhii isku mid ayay noqonaysaa oo ah ana mina Soomaal ana mina Soomaal oo micnaheedu tahay waxaan ka imi Soomaaliya su-aasha labaad aynu casharkeena ku baranna waxay tahay ee wada sheekaysigeena ah ayna taskuniina ayna taskuniina waa gabadhii ayaa lala hadlayaa laleeyahay xaggee degan tahay marka maxaad leedahay ayna taskuniina wiilkiina muxuu noqonayaa ayna taskunu micnihiina Soomaali waa isla halkii waxa weeyaan xaggee degan tahay xaggeebaad degan tahay ayna taskuniina oo ah gabadha ayna taskunu oo ah wiilka jawaabtii markaa hal bay noqotay maxay noqotay jawaabtii askunu fii meeshii aad degantaad sheegaysaa marka tusaale ahaan askunu fii Swiisara waa maxay Swiisara waa Switzerland waxaan deganahay Switzerland askunu fii Soomaal meeshii aad degantahay ayaad raacinaysaa su-aasheena saddexaad maxay noqonaysaa hal taskuniina fii madiinatin kabiiratin gabadhii aad la hadlaysaa waxaad leedahay magaalo weyn maa degantahay hal taskuniina halkaas ayaa isbedelaysa inta kale waa iskaga mid wiiliya gabadh hal taskuniina fii madiinatin kabiiratin wiilkiina hal taskunu fii madiinatin kabiiratin hal taskuniina gabadhii hal taskunu wiilkii hal taskunu fii madiinatin kabiiratin micnihiina waa isku mid waxa weeyaan ma waxaad degan tahay magaalo weyn jawaabtii waa isla hal nacam askunu fii madiinatin kabiiratin nacamna waad ku joojin kartaa haa nacam hadalkaad soo yaraynayso nacam haa haddaad sii wadaysidna waad sii wadi askunu fii madiinatin kabiiratin haa waxaan deganahay magaalo weyn halil madiinatu jamiilatun magaaladu ma qurux badan tahay jawaabtiina maxay tahay iyaduna nacam haa halkaa waan ku joojin kartaa haddii kale waxaad sii raacinaysaa almadiinatu jamiilatun jiddan nacam almadiinatu jamiilatun jiddan haa magaaladu aad bay u qurux badan tahay 5 haddaynu u gudubno macaman taskuniina gabadhii weeyaan yaad la degan tahay ayaa la weydiinayaa gabadhii macaman taskuniina wiilkiina macaman taskunu micnihiina waa hal oo waxay noqonaysaa yaad la degan tahay jawaabtiina hal jawaabun bay wada bixinayaan wiilkiiyo gabadhii askunu maca usratii waxaan la deganahay qoyskayga hal taskuniina fii beytin am
في شقة. هل تسكنين في بيت أم في شقة؟ gabadhii baa la idhi wiilkiina waxa la yidhi hal taskunu fi beytin am fi shaqatin oo micnaheedii tahay ma waxaad degan tahay guri mise apartment ma apartment baad deganta mise guri jawaabtii maxay noqotay askunu fi shaqatin jawaabtiina waa hal askunu fi shaqatin waxaan deganahay apartment hadduu qofka guri degayan wuxuu leeyahay askunu fi beytin waxaan deganahay guri askunu fi beytin laakiin jawaabteenan waa maxay askunu fi shaqatin waxaan deganahay apartment kam غرفة في الشقة kam غرفة في الشقة waa imise qol apartmentigaagu imise qol ayaa ku jira yacni imise qol ayuu ka kooban yahay jawaabtiin maxay noqotay fi alshaqati thalaathu ghurafin fi alshaqati thalaathu ghurafin apartmenteegu wuxuu leeyahay saddex qol ayaa ku jira oo uu leeyahay hal شقتك كبيرة هل شقتك كبيرة wiilkiina muxuu noqonayaa hal shaqatuka kabiiratun hal shaqatuka kabiiratun oo micnaheedii tahay apartmentigaagu ma weyn yahay jawaabtiina maxay noqonaysaa nacam shaqatii kabiiratun jawaabtiina hal bay noqotay nacam haa shaqatii apartmentigaygu kabiiratun wuu weyn yahay hal tuxibiina almadiinata hal tuxibiina almadiinata gabadhi wiilkina maxaa la leeyahay hal tuxibu almadiinata micnaheediina tahay ma jeceshahay magaaladii haddaad jeceshahay maxaad leedahay nacam haa uxibu almadiinata kathiiran nacam haa uxibu almadiinata kathiiran aad baan u jecelahay magaalada uxibu waan jecelahay almadiinata magaalada kathiiran in badan ama aad limaada tuxibiinahaa gabadhii maxaa la yidhi limaada tuxibiinahaa wiilkina maxaa la yidhi limaada tuxibuhaa micnihi waxay noqonaysaa maxaad u jeceshay magaalada limaada soomaalida magaaladii waan jeclahay limaada tuxibiinahaa wiil hadduu yahana limaada tuxibuhaa maxaad u jeceshahay jawaabtiina hal bay noqoto waxay tahay liannahaa haadi'atun wajamiilatun magaaladu waa magaalo degan oo qurux badan sababtaad u jeclaad baad sheegtay magaaladii liannahaa haadi'atun wajamiilatun haadi'atun way degan tahay wajamiilatun waanay qurux badan tahay hal cindaki jiiraanun dayibuuna wiilkiina muxuu noqonayaa hal cindaka jiiraanun dayibuuna ma leedahay deris fiican deris wanaagsan jaar ma ku leeyihiin jawaabtiina maxay noqonaysaa nacam jiiraani dayibuuna nacam jiiraani dayibuuna haa deriskaygu wuu fiican yahay deris wanaagsan jaar wanaagsan ayaan leeyahay halkan baynu ku joojinaynaa 11 ama 11 su-aalood wiil iyo gabadhba sidii loogu dhawaaqay ayaynu soo baranay
idinkuna kusoo qoro kommentiga hoose meeshaad degan tihiin. Tusaalahaan su-aasheenu u horreysay maxay ahayd? ayna taskuniina. ayna taskunu haddaad wiil tahay kasoo jawaaba oo kusoo qoro jawaabta meeshaad degan tihiin eed naga daawanaysaan eed nagala socotaan casharka ka barataan. sidoo kale wixii su-aalaad qabtaanna kusoo qoro kommentiga insha allah. hana ilaabin inaad videoga sii sheer garaysaan. qof kasta u baahan inuu barto luuqada carabiga u sii gudbiya. like-tana ha ilaabina waayo like youtube wuxuu tusayaa channelkeena iyo casharkaba dad kale. waadna ku mahadsantihiin. intaynu ka kulmi doona cashar kale cusub waxaan leeyahay fi amaanillah. wasalaamu calaykum.